waxaa habeenkii xalay xaflad ballaaran lagu qabtay barxadda aqalka madaxtooyada ama aqalka martida ee gobolka togdheer. xafladani oo loo qabtay qurbajogta gobolka togdheer isla markaasina ay goobjoogayaal ka ahaayeen madaxda heer gobol kuwa heer degmo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada burco bulsho aad u tiro badan wasiiro iyo waliba qaar kamid ah barasaabada gobolada dalka. waxaana xafladu intii ay socotay lagu soo bandhigay murti ka turjumaysa waxqabadka iyo waliba waxtarka ay qurbajogtu u leedahay gobolkani togdheer. waxaana xaflada bilad sharafyo lagu guddoonsiiyey qaar kamid ah wasiirada dalka kuwaasi oo sida ay sheegeen madaxda heer gobol ah kuwa u qalma waqtigan in la guddoonsiiyo. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maayarka magaalada burco ustaad maxamed yuusuf muraad, maayar ku-xigeenka magaalada burco, barasaabka gobolka togdheer iyo madax kale. waxay iila muuqataa habeen farxad gaara iyo reereynaya xaqiiqatan qurbajogta intaa leega gobolka togdheer u dhalatay inaan caawa halkan aanu qaaraad iyo fikradaha isku dhaafsanno iyadoo markii koowaad aanay ahayn oo markii labaad aanay ahayn ee ay tahay markii saddexaad. awalan waxaan leeyahay horta soo dhawaada marka hore gurigiina ku soo dhawaada. waxay tusinaysaa inaanu sanad kasta idiin qabanno xafladda noocan oo kale ah qiimaha aan nala leedihiin iyo sharafta aan nala leedihiin iyo sidaa noola culus tihiin. ujeeddaannu caawa u qabanay xafladdan anigoo uga tegi doonaa maayarkii oo fadhiya wixii tafaasiilee dheeraad ah. labadeeda ujeeddo waxay ahaayeen inaan idin soo dhowayno idiin muujinno haddaannu nahay maamulkii gobolka iyo degmada ee gobolka togdheere qiimiga iyo sharafta aad leedihiin wixii aad qabateen oo gobolkan aad gashateen inaannu idinka mahad celinno inaad tihiin dad u qalma caawa munaasabaddan la samaynayo iyo mid ka badanba in laydin qabto. iyo ujeeddada labaad oo ah inaan iswaraysanno horumarka gobolku u baahan yahay isla eegno waxqabadkii iyo tacabkii ah horeba u geliseen gobolkana inuu iminka idiin baahan yahay inaan idiin sheegno. shahaadooyinkii horeanu bixin jirnay waxaa arkaysaan inay gooltay waa dahab quruxdeeda. sawirkii wasiirkuna waa ku yaallaa cali xasan maxamed. zakariya cabdiraxmaan ibraahim, telefishinka caalamiga ah ee Soomaali News, magaalada burco ee xarunta